ودقدق توبة. يا فتى بالله بادر يا أخيه ما دمت قادر أو ما ترى بالدرب عاثر ولنا رب يؤازر. يا فتى بالله بادر يا أخيه ما دمت قادر أو ما ترى بالدرب عاثر ولنا رب يؤازر. كم نحن. بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا الكسل وبرنامج كيني تحناها يعني ومقعدرني ودقدق ما أنت حقين ودقدقينا ما أنت وحن ودقدقينا توبة ودقدق توبة وحوي إن أتسكدفتت وأتكدح بحدت وأتكسو لاوتت ذنوبته iyo macaasida iyo ficilada xaaraanta ah ama waajibka ilaahay ku saaray oo aad ka tagtay inaad ka soo laabatid. xageed u soo laabanaysaa? waxaad u soo laabanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa. ilaahay wuxuu leeyahay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa algafuuru raxiim. nabi muxamedow waxaad ku tirahdaa addoommadayda oo ku xadgudbay naftooda لا تقنطوا من رحمة الله. هكا قورسننا رحمة إلهي رحمة إله هكا قورسننا ذنوب تآت سميسي إله سبحانه وتعالى ودافيا. إن الله يغفر الذنوب جميعا تنبيد إذ إلهي ودافيا ويوا غفور رحيم ودنب دافع ومتنا حريص بدن إله سبحانه وتعالى. وحالة باهية هي إن أتلتي مادي توبة شروط هذا وأنا سدح shardiga ugu horeeya waxa weeye inaad ka tagtid dunuubta aad samayn jirtay, dunuubta aad dhex dabaalan jirtay. sidoo kale in aad iska xirtid waxyaalaha kugu sababi jiray dunuubtaasi in aad ku dhacdo. hadduu yahay saaxiib xun in aad saaxiibkaasi xiriirka u jirto, ama mobeelkaaga haddaad wax xun ka daawan jirtay in aad iska tirtirto waxyaalahaasi xunxun si ay u noqoto towbadaada mid saxan. shardiga labaad ayaa wuxuu yahay in aad ka qawmamaysid oo aad ka shalaydid ذنوبته iyo macaasida aad samaysay waqtiga qiimaha badan oo aad lumisay. shardiga saddexaad ayaa wuxuu yahay in aad go'aan adag qaadatid si aadan mar kale ugu laaban dambiga aad samayn jirtay ama aad samaysay. hadduu jiro qof bani aadam oo xaq aad ka gashay ama xoolihiisa aad qaadatay, waxaa kugu waajib ah in aad u celisid xoolihiisa ama cafis aad ka dalbatid. walaal ma og tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala in uu ku farxayo towbadaada? haa, wuu ku farxayaa, bal iska badaaye dunuubta aad samaysay iyo xumaatada wuxuu kugu bedelayaa xasanaad iyo dembi dhaaf. wuxuu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan faulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaat. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kariim, waa deeqsi. oo maxaad sugaysaa hadda? soo lama gaarin waqtiga aad ilaahay u laaban lahayd. waa bishii makfirada, waa bishii dambi dhaafka. ma doonaysid miya inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuubtaada uu kugu bedelo xasanaad? dabcan waad doonaysaa. ilaahay u towbadkeen. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ina allaha yakfiru dunuuba jamiica. ilaahay raxmadiisa ka quursanin, dunuubta dhan ayuu dhaafaya. sidoo kale xabiibkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu dhahay التائب كمن لا ذنب له. قفك إلهي سبحانه وتعالى أصول لابتو أو توبت كان وحول متي هاي قف أن ذنبي أن لهن أو كلام وايو صفحة هذا ذنوب تأت سميسي ضمان ولا ترتريا نظيف أي نقنيسا كلين حد آيات واحد بلا ويسا ورقته عسب ولا قفك مسلم كأه وحاله بهي هي إن مرولبو إلهي سبحانه وتعالى أصول لابتو ذنبي داف ويديستو وايو xabiibkeena ayaaba samayn jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh asigoo loo dambi dhaafay midka hore iyo midka dambaba. wuxuu leeyahay xabiibka salawaatu rabbi wasalaamu calayh yaa ayuha annaas tuubuu ila allah wastakfiruuh fainii atuubu fi lyawmi 100 mara. dadow ilaahay u soo laabta, ilaahay xaggiisa u soo carara oo dambi dhaaf weydiista. waayo aniga maalin kasto waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u towbad keenaa oo aan dambi dhaaf weydiistaa 100 jeer. haddaba aniga iyo adiga
xaggeen joognaa waa in aan kasii badinaa oo dambi dhaaf aan weydiisanaa ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay dembiyaalkeena ha dhaafo dambi waalidkeynana ha dhaafo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi بادر يا أخي ما دمت قادر أو ما ترى بالدرب عاسر ولنا رب يؤازر هذه الدنيا مراتب وفصول ومناقب لا تكابر قم وواكب آخر العمر مقابر آخر العمر مقابر